ويري لكن waxaan rabaa inaan ku sheego buu durbaan ninka xada in durbaan xaday meesha ku garaacan lahaa baa la rabaa shirkaas waan sugaynaa laakiin nin durbaan xaday soo lama rabo in la tumo halka lagu tumay la rabaa warsan gali nimanka la yiraahdo waa u duceynaynaa waxayna marayaan meel dhulbaantuhu soo mareen 2016 baa waxaan tagay Lascanood anigu Afrika ka yimid markaas waxaan idhi dadka markaa la sheegaysatay cali khaliif raaya una xariiste saaxadheer iyo hawdadkaas baa maalin meel laga saarayaa ka Puntland mushaharka ka qaataa wuxuu ku oranayaa cali khaliif wuxuu wadanka u xoreyn waayay ka Somaliland markaa askariga oo helaas anad joogan wuxuu ku leeyahay muxuu cali khaliif wadanka u xoreyn waayay halkaas ay marayaan warsangeli ha loo duceeyo laakiin waxa ilaahay fadligiisa warsangeli inaanan anigu hiilna ugu ciil qabin hoona ugu ciil qabin ina cabdisalaana sagaalkii bilood Lascanood qiyaamaha yar la tusay uu aamusnaa muusuna la shaqeynay laakiin warsangeli waxba igama baaqan maantana warsangeli gobolka la isku haystaa oo sharafta dadka iyo deegaanka loo dagaalamaya ceergaabo way ninka ku qanacsan inuu wiil hasaagiisa hoos joogo oo gacanta hoos dhigto iyo ninka ku diriraya war walaalow aynu sinaano oo aan wada deganaano oo aan daris iyo qaraabo noqono de waa nasiibkiis ninka maanta aqbala inuu hoorsado gacanta arinta wacyiga bulshada Puntland waxaan amranayaa dadka inay ku filan tahay ayaantii Lascanood la duqeynayay oo dagaalku aan wali bilaaban baan waxaan qabsanay dood anagoo dhowr nin oo reer Puntland ah oo reer kala duwan ah rag qaar baa waxay ka digayeen dagaalkan inaan lagu degdegin inaan SSC waxa u diyaarsanayn waxaan wacnay garoow nin jooga kontoni afraad baan ku nooga warranay meeshaas maxaa ka soo bixi kara wuxuu noo sheegay dawladda Puntland la yiraahdaa hadda waa dawladda hadda lacagta samaysanaysa lacagtan leedin sheegay bangiyada waa diyaar boosaasa laga dhisay qardha laga dhisay garoowa laga dhisay wax laga dhisay gaalkacyo wuxuu noo sheegay ninkaas dawladdaasi ciidan la yaqaano oo magac leh oo dawladda Puntland leedahay inuusan jirin waxa jira wax la yiraahdo factions ciidanka faroole PMBF waxa la imaaraadku leeyahay BS oo Cabdullaahi Diyaano leeyahay wama ila dalik iyo ciidan beeladada dagaalka socda baan waxaan sheegay inay kontoni afraad maran tahay khasaarahana ay noogu wacan yihiin nimanka aan hanka qaran iyo hanka qabiiltoona lahayn haddii ciidankii Soomaali loo dhisay maanta ay 5,000 ama 2,000 noogu dari lahaayeen oo maanta kontoni afraad ay ka soo dhaqaaqi lahaayeen 2,000 oo wiil magaalada inta lama duqeeyeen ma qaadateen xaqiiqada haddaba aan idin sheego nimankaasi Puntland waxay u yaqaanaan magaalada la yiraahdo Boosaaso magaalada qardha la yiraahdo laamigu u maro magaalada garoowe la yiraahdo gaalkacyo inta ay ka degaan intaasina waxay aaminsan yihiin inaanay ciidanba u baahnayn laakiin su'aal baan weydiinayaa iyagana su'aasha hal la weydiiyo haddii maanta aanu aqbalno wadanka in la kala gooyo illa farqu ba example baan siinaya reer SSC way ugu dambeeyaan waxay hadda leeyihiin firdhiyo khalad buu sameeyay xamar buu aaday xasan buu la hadlay bal muudani u tago bal firdhiyo ninka la yiraahdo anigu ma aqaan shakhsiyan laakiin waxaan ilaaliyaa mabaadidii loo dhaariyay sida uu u xifdinayo February 6 baa waxa loo dhaariyay inuu ilaaliyo dadkaas inay maamul madax bannaan yihiin federaal inay hoos tagaan ama jinni ha ka taliyo xamar ama xasan ha ka taliyo ama xuuti ha ka taliyo xamar waa meesha Soomaaliya wada aado oo loo aqoonsiyay caasimadda Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni isaga yiri waan aqbalay waana la shaqeynaynaa Saciid Cabdullaahi Deni isaga diidan hadda inuu la kulmo ninka la fadhiyo ninka diiday inuu qaabilo waa Deni su'aal baa markaa idin weydiinaya fadhiye هذا كهر نبى هالله يهرجسك هالله بركاسه وحيري أنا كله ده SNM team بوها
wuxuu yidhi cidda Soomaali maanta kala haysaa waa annaga haddaanu buu yidhi saaka ka dhex kacno Kismaayo iyo meesha la yidhaahdo iyo Boorama waa la isku yaacayaa laakiin waxaan u sheegay inay beentiis tahay waxaan rabaa inaan Saciid Cabdullaahi Deni weydiiyo iyo dadka siyaasaddiisa daacadda u ah firdhiye ninka la yidhaahdo maanta iyo ninka la yidhaahdo jaamac okay Dubays hadday aqbalaan applicationada hoos yaalla oo ay aqbalaan Soomaaliya in la kala gooyo oo ay raalli mathalada ku noqdaan Puntland maxaa caqiibo u ah waxaan umaleeyahay taa xisaabta laguma darsan hadduu maanta aqbalo firdhiye ilayn waxaa la leeyahay every single night wuxuu la hadlayaa firdhiye xasan sheekh laakiin dadku waxaanay ogeyn every single night xafiiska Saciid Cabdullaahi Deni iyo cira inay wada hadlayaan sidaa diyaaraduhu ay u soo qaadayaan wufuudda gorow ugu soo degayaan baa sal ah wallaahi waxaan idiin sheegayaa waa dhab ilaahay baan ku dhaartay keebaa khatarsan in cira lala dhiilgareeyo oo lala hadlo iyo xasan sheekh in lala hadlo kala goynta Soomaaliya maanta firdhiye iyo jaamac okay baa mas'uul ka ah hadday saaka aqbalaan inay ku dhaqaaqaan xadka Ingiriis inay soo xidhaan maxaa Puntland caqiibo u ah waxaan ma leeyahay xisaabta laguma darsan haddii siyaasadda la isku xumeeyo haddii siyaasaddu ay arki weydo ehelnimada haddii siyaasaddu ilaalin weydo waxa la isu yahay hadday siyaasaddu noocaan noqoto hadda waa suurtagal xasan buu la hadlay war xasan waa lala hadlayaa ninkani maamulkiisu wuu madax bannaan yahay mabaadi u qoran baa jirta kuwaas baa lagu ilaalinayaa Saciid Cabdullaahi Deni haddii ay jiraan siyaasiyiin reer SSC ah ama isma reer SSC oo wax kale u sheegay adeerow soo bandhig war ku dheeraan maaye qodobka intaasan koranaya finally waxaan kaga baxayaa reer SSC nimanka la yiraahdo halkan waxaan hambalyo uga dirayaa Sheekh Aadan Weli Cabdi Xuseen xafidahullah reer SSC waxaan rabaa ku dhaado niman yahow iyo habla yahow waxaan u maleynayaa inaad degdeg wax u ilowdaan Puntland waa walaalaheen waa jecelnahay beerkeena iyo wadnaheena weeye laakiin hadday mabaadidu ina kala geyso oo masaalixda aan ehelnimada ku dhisnayn la kala raaco waxaa loo baahan yahay cagaha dhulka in lagu xajiyo Soomaaliya waa la qabsanayaa sida muuqata Soomaaliya waa la qabsanayaa dunida way ismuquunanaysaa geesku wuu ismuquunanayaa Soomaaliya waa la qabsanayaa cadow baanu ku soo fool leh cadowga ninkii kabaha u qaadi jiray wuu u qaadayaa ninkii geerida dooran jirayna geeridu dooranayaa waxaan rabaa inaan idiin sheego meesha aad ka soo laabateen waa garanaysaan Puntland shalay ma dhalan Puntland waa tii aad taqaaneen wey labadaa wiil ilmaadeerta Saciid Cabdullaahi Deni iyo ninka la yiraahdo Cabdikariim ninka la yiraahdo magaciisa bay gooyay firdhiye wax kale iskuma haystaan waxay isku haystaan mabaadidii idinku aad qorateen aad firdhiye ku dhaariseen Saciid Cabdullaahi Deni uu yiri waan aqbalay firdhiye ninka la yiraahdo waxaan ku ilaalinaynaa mabaadida loo dhiibay inta uu ku dhaqmo waxaan ka hor imanaynaa marka mabaadidii loo dhaariyay oo loo dhiibay uu khilaafo ama wax ka bedelan uu la yimaado inaynu dagaal galno oo ceerigaaba ka dagaalano oo hawd ka dagaalano oo nugaal ka dagaalano inagu ma inaan dooran reer qayrkeen reer ah oo inaga tira yar oo inaga tamar yar laakiin beentu ay tayaysay baynu la tacaalaynaa wuxuu yidhi garaad jaamac garaad cali haddaan reer Sheekh Isxaaq go'aansan dalka iyagu inaanay lahayn dagaalku wuu daba dheeraanayaa haddaanay reer Sheekh Isxaaq go'aansan
inay yihiin reer ka mid a reeraha waqooyi oo reeraha aan waxba dheerayn haddaanay aqbalin dagaalkuu daba dheeraanaya soomaali anigaa gediyey oo godka u qoday anigaa amxaara u galoo soo gargaarsaday soomaali gebigaa ku dumay aniga weyguul dhulkana waannu kala goynaynaa waana gadaynaa ninkii aan gadaashayna marin waannu gowrici niman baa go'aankaa qabataa guddoonsaday gulufka iyo geerida jirta iyo galada yeedhaysa soomaalida gumaynteeda iyo eedu kala geynta niman baa guddoonsaday inay sharaf ku gaadhaan reerkaa qaranka sheegtay oo dhulkiinna iyo dhiiggiinnaba xalaashaday dhibaatada aad og tihiinna idiin geystay inay reernimo aqbalaan oo dhulka cagaha soo dhigaan waa waajib idinka idin saaran wey waa waajib idinka idin saaran wey dagaalka annagu dhul egastara adooni mayno duulaan ma nihin inaannu dowlad noqonno u dagaalami mayno inaannu xoolo hello u dagaalami mayno in Donald Trumpna aqoonsado u dagaalami mayno in Ethiopia noo yimaadaan u dagaalami mayno waxaan u dagaalamaynaa waxa weeyaan dhulka ilaahayna siiyey inaan si sharaf ugu noolaano oo reerkaa yar diidan yahay waryaa ilaahay umadiisa yaqaan ingiriisku guuriyay kuwa guraya raadkiisa gacalkii xigaalku qabay daba gocleynay nimanka xorriyada gubtay ee gibilkii doonay reerka waxay go'aanayaan ruuxna garan waay nimanka shisheeyuhu gabray ee gaangisku tali adna ay gudoonku iyo tahay haatan golo jooga dhulkay maanta kala goynayaan garasha laawooy intii gees ciidow galay aakhiro u guuray in tawxiidku laabteena galo nimankii loo gooyay nimankii naftooda u gambiyay gaalnimada diid rabbi ha u gargaaree kuwii diinta garabsii ingiriisku gaasku diraba nimanka googoostay gigidu istaagaba kuwii ugu mucallafsiiyey markuu waayay gaadi socdiya ciidan kala goosha gantaalkii taleex lagu dhuftay qaaraduba guuxday wixii meydka guban haadku gogay ee la garan waay annagaan garowshiya ka rabin garab istaagtoonna gob hadday yihiin taa quray garan lahaayeen maantana anoo aan gafayn eedna gelahaynin hal baan idin guddoonsiinayaa aa ku gamaadaan gobodnimada soomaaliyeed waa gundheerta annagaa go'aankeeda loo goynay waa hore hadba wiilal gaajoonayaa gini garab ha siiyeen gumaystiya nin gibilkooshadaa kama guddoonshaan abidkoodba geniyay wateena waxba u goyn maantana midday goobayaan waa ka garannu waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala u weydiiyo inuu racafiyo magaciisa iyo karaamadiisa iyo cizadiisa shaqaadan weli 2010 baan waxaan weydiiyey culimmada laascaanood war maradan tawxiidku uu ku qoran yahay ninkan aan salaada tukanayn labada qowl xumbada cagaarka ka sii deynaya uu wato geedkii ingiriisku istaagay ku socota iyo shariicada islaamka maxaa ka dhaxeeya waddan Soomaaliya la yiraahdo islaam ah in la kala gooyo oo waliba jihaadiyiin loo sheegto war shariicada maxay ka qabtaa leeyga ma jawaabin waxaan rabaa laakiin fadwadaas sheekh aadan weli maanta uu baneeyay waa sharci oo waa aqli horena culimada Soomaaliyeed waxa uga warramay mataladaas in ingiriis xadkiisa loo dhintaa inay ehelo naarnimo tahay sheekh cali warsame laakiin xasan cali warsame uu ka aamusay boqorkayn maalintii xabadu soo gaadhayna reer budco wuxuu ku yiri istifaac dhulkiina difaacda intii laas aanad la duqeynayeen wax kula ka sheekeynay aad baan waxaan ugu faraxsanahay inay culimada SSC dadkooda runta u sheegaan oo aan aaminsanahay inay hore u gabeen iyagu kaalintaas inaad ceerigaabo guryihiina si nabada ku tagtaan oo ku degtaan caynabo guryaha aad ku leedihiin si nabada ku tagtaan oo ku degtaan haddaad weydaan nabadna aad xabad ku tagtaan waa waajib sharci ah oo caqli ah iyagu waxay sheegteen inay amxaaro isku dhiigoodo isku qulqulay mujaahidiin yihiin ilaahayna been bay u sheegeen islaamkana been bay u sheegeen laakiin waddanka Soomaaliya in laga badbaadiyo kala goynta amxaarka iyo ninka la jira in la dilo inay aqbalaan inay reer Soomaaliyeed oo waqooyi degan reeraha kamid yihiin ay aqbalaan waa hawl idinka idin taalo way
هجران واينين دوركينا دولة آدستين وأمانة إذن هيسنا وحويا قرب كذا استاجا وواجب كي نقطة تاس أيا شرفتي إنه كنت أدون كي آخر هذا اللبضة بقى محايا لي ما لي هدن خيار كله وحال يدين شيء يقولكم مجوري إدت كجوري جورا معنى هذا حويا سلا هذا سمين دوان الجورتان هذا الجورتان I don't know ملا أجوري سا سيد عبد الله دين وين سوي علينا I don't know ملا أجوري كل على حال وعن ذي الشيء يا إلهي بقى إذن شرفي رب سبحانه وتعالى بقى إذن شرفي وإذن عزيي وعدو قاد ظالم كإذن شبيي هراء الصعدة انت الرير كاسي أقبليان إنه يهين رير وغوي oo talada waqooyi reeraha Soomaaliyeed kala siman wallahi hawl baa idin taal waa u mahad celinaya sheekh aadan wali waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ku xifdiyo reer sheekh isxaaq culimadoodana qodobka u yaala wax weey inay reerkooda naarta ka badbaadiyaan oo ay ka joojiyaan qodobka kadibka ah oo beenta ay ku dhimanayaan dadkana ku dilayaan oo ay ka diliid gareeyaan waxa ay ku xidheen oo ah dhulka idin kaale Ingiriis baa insiiyay Ingiriis awow laga dhigaa kaan nimanka eedeen Arabigu markuu gaaray oo la leefsiiyay waa la asmiyay hadal ku andacooda intaasna khayray guuriyo gobonimo salaam alaykum